lagu diray weerar ay diyaaradaha aan duuliyaha la socon ee Xizbullah ku qaadeen magaalada Xurfeysh ee waqooyiga Israa'Iil. militariga Israa'Iil ayaa khamiista maanta sheegay in askari lagu dilay weerar ay fuliyeen diyaaradaha aan duuliyaha la socon ee kooxda Xizbullah ee Iiraan taageerto, taasi oo ah khasaarihii ugu dambeeyay ee isku dhacyo bilihii dhawaa ka socday xuduudda. Rafael Kaudas ayaa Arbacadii ku dhintay dagaal ka dhacay waqooyiga ay ciidamadu ku sheegeen website-kooda. Warbixin kooban uu siiyey warbaahinta ayaa afayeenka ciidamada Colonel Peter Lana waxa uu ku sheegay in Kaudas oo 39 sano jir ahaa lagu diray weerar ay diyaaradaha aan duuliyaha la socon ee Xizbullah ku qaadeen magaalada Xurfeysh ee waqooyiga Israa'Iil. Wargeyska Times of Israel ayaa sheegay in weerarka sidoo kale lagu dhaawacay 9 askari oo mid ka mid ah uu dhaawiciisu culus yahay. Lana waxa uu sheegay in Xizbullah 8 bilood la soo dhaafay ay si maalinle ah u kordhiyeen weerarkooda ka dhanaa Israa'Iil ayna isku dayayaan inay jebiyaan hababka difaaca ee Israa'Iil. dhimashadii ugu dambeysay ayaa ka dhigaysa ugu yaraan 15 askari iyo 11 rayd oo lagu dilay waqooyiga Israa'Iil sida laga soo xigtay militariga tani markii ay bilowdeen iska horimaadyaddan u dhaxeeyay ciidamada Israa'Iil iyo Xizbullah oo xulafada Xamaas kuwaasoo bilowday kadib markii Israa'Iil ay dagaal ku qaadeen Gaza 7 Oktoobar sanadkii tagay. dhinaca Lubnaan rabshadaha xuduudda waxa ku dhintay ugu yaraan 455 qof oo u badan dagaalyahanno laakiin ay ku jireen 88 qof oo rayida sida ay sheegtay wakaaladda wararka AFP. dagaalka Gaza ayaa bilowday kadib markii Xamaas ay weerar culus ku qaadeen Israa'Iil 7 Oktoobar kaasoo ay ku dhinteen in ka badan 100 qof oo Israa'iiliyiin ah sida ku cad xogta wakaaladda wararka AFP oo ku saleynayso tiro koobka rasmiga ah ee Israa'Iil. Xamaas ayaa sidoo kale waxay afduubeen 251 qof oo isugu jiray Israa'iiliyiin iyo ajaanib, kuwaas oo 120 ka mid ah weli lagu hayo Gaza oo ay ku jiraan 41 qof oo ay militarigu sheegeen inay dhinteen. Israa'Iil ayaa wacad ku martay inay ciribtirayso Xamaas waxayna Gaza ku qaaday dagaal dhulka iyo cirka ah oo ay ku dhinteen in ka badan 36,000 oo qof oo badankood shacab ah sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Gaza. sida ay sheegayaan militariga Israa'Iil 645 askari ayaa la dilay 7 Oktoobar sanadkii tagay oo ay ku jiraan 294 ku dhintay ololaha ka dhana Xamaas ee dhulka Falastiiniyiinta.